isugu nimid wanqalka iyo daahfurka wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaruhu digreeto golaha iyo go'aan golaha wasiirro ku hawlgeliyay dib in loo bilaabo muhiimadda iyo ahmiyadda ay ku fadhido in qarankeenii dumay burburay 30 sanadood ay soo dhaafnayna burburku ku socday hadda se dib u soo kabanaya intii muddo ah inaynu dib u dhisno maadaama amnigeenii dib u soo kabashadeenii dhaqaalihii bulshadii dhinac walba maanta hiigsi iyo himilo lagu naaloodo iyo naruuro fiican inoo muuqato madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay u garteen General Bashir oo runtii 3 sanadood ee u dambeysay ay dawladdu jirtay anigu xilalkii kala duwanaa ee uu hayay aan wada shaqeynay oo hawlkar ah lana hubo in laga seexanayo hadda waxaan eegayay xafiiskan iyo xaruntan uu dib u habeeyay wiga shabeelle oo mar walba fataha iyo shaqada u baahan in laga qabto waxaan hubaa haddaan xoog isu geyno wakaaladda General Bashirna ay u soo jeestaan inaynaan kal dambe ilaahay idamkiisa arki doonin webigii oo fatahay waxa kale oo hubaa si isxilqaana sida u aragteen bataalooyinka dhismayaasha kale ee hadda socda ay ka mid yihiin tiyaatarka madxafka iyo xarumaha kale ee ku dhisayno isxilqaanka maktabadda qaranka in kaalin iyo door weyn oo firfircoon stadiumka Muqdisho uu ka kaysan doono wakaaladuna markaynu maanta laga bilaabo in daah furnay oo aynu joogno November aynu qiimeeyno maxaa u qabsoomay sanadka dambe November 2020 iyo waliba 60 guuradii oo inagu soo dhow maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed maxay tahay inaynu inta qabanno haddaynu gacmaha isqabsanno haddaynu cududda isku biirino haddaynu wada shaqeyno wakaaladda iyo khubarada kalena la shaqeyno waxaan isleeyahay shaqooyin fara badan iyo xarumo badan oo taariikhiya baynu dib u dhisi karnaa kaanaalo badan baynu dib u dhisi karnaa xarumaha dawladda iyo xafiisyaha dawladda ayaynu dib u dhisi karnaa oo shaqadii dib loogu noqonayaa kaalinta markaa ka soo hogaaminta iyo ra'yiga iyo khibradda wakaaladda marka laga yimaado shicib iyo dawladba waxay noo taalay inaynu dardar gelino barnaamijka isxilqaan ee madaxweynuhu inoo daahfuray oo ilaa haddaba midhihiisii aynu aragno intii la daahfuray kadib ra'iisul wasaaruhuna hormuudka u yahay xagga xukuumadda fulinteeda marka wakaaladda aynu kula shaqeyno si isxilqaan hadday tahay inaynu ku ururino oo aynu ku biirino wixii aynu dhaqaale ahaan karno maskax karno cudud karno shaqo karno intaas oo dhan aynu ku biirino dabadeedna dalkeenna intii burbur ahba aynu dib u dhisno fidsano la arko Soomaaliya lagu soo hiran karo muraayada xafiisyo qurux badan leh maanta waa arkaysaan hadda timaadaan xafiisyada dawladda qaar badan oo kamid ah intaan dib aynu u habaynay marka halkaas aynu kaga sii wadno weeye maareeyaha waxaan leeyahay General Bashir hambalyo adiga iyo wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed waa idin hambalyeynaa guuleystaan idin leenahay mar walbana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda dhammaan diyaar baanu idin nahay shaqaalaha dawladda markastoo noo baaqdaan inaanu iskiin barbar taagno idin kala shaqeyno aanu kuuliyaal iyo gacan yareyaal idin noqono haddii ilaahay wakaaladdu waa inoo daah furan tahay General Bashir hawshii loo diro waa laga seexanaya runtii taasaan anigu u marakacaya hawshii loo diro waa hawl laga seexday oo la qabtay oo meel martay marka maxay inaga inoo furan inaynu gacan siino Soomaaliya General diyaar baanu ku nahay ilaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gacan baanu ku siinaynaa iyo xukuumadda dhamaantayo adiga inaad noo baaqdo ayuun bay ku xidhan tahay guulayso wakaaladuna waa guulaysanaysaa Soomaaliya waa guulaysanaysaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo ama hadsanti